alla ka cabsiga u fiican marka qofku sidii uu habeen hore u tukanaya xalayna waxa ay inuu tukado ciidi caawara waa tukanaya salaatuleylka uu sii wadaya taasi waan baraarujin lahaa alla ka cabsi macnihiisu waxa weeye wixii ilaahay uu ku faradlay timaado iyo wixii uu ku diido iska dayso diintuba waa intaa wixii waajiba iyo wixii sunnah inaad fuliso wixii xaaraana iyo wixii karaahiye inaan iskaga hadho intaa waxa sii raaca qofka muslimka ahi xil badan baa saaran waa tujaaha nafsi wa tujaaha al-umma marka la eego naftiisa iyo ummadaba nafteena xil baa saaran inaga saaran si aynu hagaajino ummadana xil baa inaga saaran qof waliba kaalin buu leeyahay culimo iyo cuqul madax iyo raciyad qof waliba inuu kaalintiisa qaato dadku saasay isku kabi karayaan marka waxaynu leenahay dadaalka aynu badino biyo magaalada hadday tahay wanaag la isfaro xumaan la isu diido sadaqa la bixiyo iyo danaha ummadoo la isu taago xilkaas wayna wada saaran yahay ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada uu ina siiyey oo runtii fadli ilaahay ah taana waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu inoo sii adkeeyo ummadda islaamku meel ay joogtaba waxaa muhiima inay hamigeena qaadno oo walaalaheen meel kastay ku dhibayna aynu u ducayno wax kale uma qaban karno walaalaheena Falastiina xalay iyo habeen hore ama habeenadan ay soo dhaafnay boqolaalka qof laga dhaawacay laga dilay inaynu u ducayno mooyaane meel kasta ay joogaan ba ummadda islaamka dhiban waa la wadaagaynaa dareenka waanaynu ducaynaynaa dadkeennana inta baahan ee duruufaysan waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu duruuftaa ka dulqaado ducadaynu u ducayna cid kale ilaahay iyagana wuu aqbalaya innagana waa inoo aqbalaya walaalayaal waxyaabaha nicmada aynu haysano inaga dhaawici karo waxaa ka mid a xumaanta oo aynu fududaysano ciidaha waxyaabo yaro qallooca baa dhaca xagga dhallinyarada marka la eego way dalxiisaan baabuur yaryar baa la fuulaa mararka qaarkood baa ceeba ka dhacaan xadgudub baa dhaca safar macsiyo ayaa dhaca tumasha meelaha qaarkood hudheelada ka dhaca waxaasoo dhan waa inaynu iska wada waaninaa oo si aanay nicmadaasi nooga duulin ilaa waxyaabaha nicmada khatarta ku ah waxaa ka mid a macsiyada iyo dembiga lilmacaasi aathaar fii xayaati alcibaadi walbilaad macsiyada iyo dembigu raad weyn buu ku leeyahay dalka iyo dadku markay diinta u hoggaansan yihiin barwaaqadu kama kala goodo waa low istaqaamuu calaa dariiqati la asqaynaahum maan qadaqa madarkaan u badin lahaa buu ilahay yidhi hadday jidka ku toosmaan haddii laakiin macaasi iyo dembi la sameeyo dalka iyo dadka khatar bay ku tahay marka daayarteennana aynu waanino dadkeennana aynu toosino qof walibana kaalintuu leeyahay ha qaato badin maayo hadalka oo runtii bacadkii baa soo baxay waqtigiina waa dhow iyo aad baa u mahadsantihiin hambalyo جزاكم الله خيرا وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته